looga hadlayay xaaladda ammaanka galbeedka Wajeer oo maalmahan dhowr qofood lagu dilay dhanka Booji ee xigta galbeedka ismaamulka Wajeer ayaa maanta lagu qabtay magaalada Wajeer kaasoo ay ka soo qayb galeen laamaha amniga xildhibaanka galbeedka Wajeer gudoomiye xaafadeedyada deegaanka galbeedka Wajeer iyo waxgaradka ka soo kala jeeda deegaanka galbeedka Wajeer kadib markii kulankaasi uu soo idlaaday ayaa waxa saxaafadda la hadleen xildhibaanka galbeedka ismaamulka Wajeer Yuusuf Maxamed Faarax iyo gudoomiyaha ammaanka ismaamulka Wajeer xildhibaan Yuusuf ayaana bulshada ugu baaqay inay nabadda ku dadaalaan oo ayna dajiyaan xiisadda. bismillah maanta halkan waxaan iskugu imaadnay arrintii falka xun oo ka dhacday Wajeer West oo 3 qof ay ku dhinteen. horta tan horeysa inaan tacsiyo u dira cid kasta oo laga dhintay inaad sabar iyo imaan Ilaahay siiya kadib maanta